shirweyne socday muddo isbuuc ah oo looga hadlayay arrimaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba, xaaladaha bulshada saboolka iyo xuquuqda dadka waayeelka ah oo ay ka soo qayb galeen madax ka socday dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo hogaaminayay xildhibaan Maxamed Nadiif oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxda hay'adda qaramada midoobay ee ISKWA ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi. dowladda Soomaaliya oo dhawaan ku biirtay hay'adda ISKWA ayaa shirkan wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee nuuciisa ah, waxaana xigi doona shirar la jaad ah oo la doonayay in wax looga qabto saboolnimada dadka haysata, xuquuqda dadka waayeelka ah iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qababa. xildhibaan Maxamed Nadiif ayaa TV-ga Universal uga warramay waxa looga hadlay shirkan iyo muhiimadda uu leeyahay Soomaaliya. muddo 7 maalmood ayaa la waday ama ka badanba, waxa ka soo qayb galay dad khubaro oo kala gedisan oo isugu jira Soomaaliya ajaanib. tusaale ahaan dadka baahiyaha gaarka leh waxa laga hadlay waxay ahayd daraasad weyn oo laga sameeyay xaaladooda, noloshooda, aragtida bulshada Soomaaliyeed si wax u aragto iyo sidii loo horumarin lahaa. waxyaabaha la isla qaatay waxaa kamid ah dadka baahiyaha gaarka leh in la siiyo xuquuqdooda dhan walba, hadday noqoto midda tacliinta, midda caafimaadka, midda xushmada, midda shaqada iyo wax kasta oo calaaqa leh ee dadka baahiyaha gaarka leh in la siiyo xuquuqdooda in laga shaqeysiiyo oo noloshooda dib eegis weyn lagu sameeyo. waxaan ka soo qayb galay dad ka socda hay'adda qaranka Soomaaliyeed oo ugu horeeya gudoomiyaha hay'adda qaranka Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay shirka, iyo dadka ka soo qayb galay iyaguna fogaan aragga ama zoomka kaga soo qayb joogeen. mawduuca marka si weyn baa loo daraasayay, marka ugu dambeysay marka in loo sameeyo xagga sharciga iyo xagga dastuurka Soomaalida iyo istiraatiijiyad in laga sameeyo. waxa inta la mid dadka waaweyn iyagana oo howlgabka loo yaqaano in adduunka aan la mid noqono xuquuq dadkaas iyo xurmadooda iyo noloshooda in la saaro in wax baa looga hadlay. mid ugu dheereed marka ugu dhibka badneed waxay ahayd dhimista saboolnimada. sida la ogsoon yahay marka Soomaaliya dhammaan daraasad laga keenay dhammaan gobollada Soomaaliya dadku qaabka u nool yihiin, faqriga ama saboolnimada ayaa waxa laga fiirinayaa dhan walba oo qofka bani aadamka ah, hadday noqoto dhinaca shaqada, dhinaca caafimaadka, dhinaca tacliinta, adeega guud oo qofka ku nool yahay qoyska Soomaalidu si u nool yahay ama qofka si u nool yahay iyo sidii loo dhimi lahaa. runtii markaad fiiriso lamarada meesha ka soo baxay, runtii lamaro naxdin la ka soo baxay oo dadka Soomaalidu in duruuftooda aad u xagga dhaqaalaha ay aad u hooseeyaan. ugu dambeyntii qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay shirkan oo ka kala socday dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo hay'adda statistikada qaranka ayaa la hadlay TV-ga Universal. xogta sahanka caafimaadka iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee la qabtay 2019 lana soo saaray 2020. marka hay'adan ku biiristeeda faa'iido badan ay Soomaaliya u leedahay, wax badan oo ka faa'iido doona insha Allah. waxaa diyaarinta shirka waqtigii socotay isku waxaan ku biirnay annaga hay'adda isku sanadkii hore ayaan ku biirnay dowladda Soomaaliya ee qayb ka noqotay. wixii sanadkaas ka dambeeyay waxaa laga shaqeynayay arrimahan oo technical ahaan looga shaqeynayay, waxa aan ka wada shaqeyn karna hay'adda ay naga kaalmeyn karto. waxa aan dalbano waxay ahayd in ay naga kaalmeyso istiraatiijiyooyin aan u samaysan lahayn, siyaasad aan u samaysan lahayn, xog ururin aan u sameyn lahayn. runtii shaqada way soo socotay, laakiin barnaamijka ugu weyn iyo kulanka ugu weyn kiisa koowaad ah waa midkan. asaga meelo kala duwan uu leeyahay qayb qofba si buu u saameeyay, qof waxbarashadu ka saameeyay, qof caafimaadku ka saameeyay, qofka dhaqaaluhu ka saameeyay. marka intaas dhan ayadoo la fiirinayo go'aanaha soo bixi doona insha Allah tacaala, ayadoo marka la tixgelinayo hay'adda statistics qaranka baxthiga ee sameeyay insha Allah taasaana wax loo saleyn doona. Saciid Qarafaa, Universal TV, Nairobi.